السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الداود يلسود وهذا ومركز ولكن هذا كرامة هلك هذه قد داونا سنة طبعا وبرتن يوتيوب كله هذا كرامة هدي أي تاي مركو وريسي أن صوب وقتفضل سبسكرايب تنقول شرف إسلام كان الريح كمرا الكعس سيقصو قاران لعدوين ك يوم مقالة حيسها له كلا دونا قصو قد بينه هدي هورين ولا شوكتنا آدي كوني يكوتشر يد ما سنتي متى حد نوصارن تاي waxaan ka codsanaynaa markaas inaad muuqaalka like sii saarto si uu si baaho oo uu si gaaro markaas bulsho badan mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu magacaabi jiray Juweeriye Subcis ayaa ku geeriyootay rasaas galabta ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Garaadwiilwaal oo ku yaala magaalada Jigjiga rasaastan oo uu riday askari ka mid ah ilaalada garoonka ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac xildhibaanada geeriyootay oo laga soo doortay gobolka Doolo ayaa wax badan ka shaqeyn jirtay hawlaha gargaarka waxaana sidoo kale ay ku jirtay xisbiga talada haya ee Itoobiya xildhibaanad Juweeriye oo ahayd hooyo leh caruur ayaa sidoo kale ka mid ah xildhibaanada sida weyn uga dhex muuqda baarlamaanka deegaanka Soomaalida maadaama inta badan ay ka shaqeyn jirtay arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka lama oga sababta rasmiga ah ee askarigani uu rasaasta u furay hase yeeshee dad goob joogayaal ayaa sheegaya inay ka dambeysay markii ay murmeen askari kale oo ay ka wada tirsan yihiin ciidanka federaalka ee ilaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga dhaawacyada ayaa inta badan ahaa rakaab ka dhoofayay garoonka diyaaradaha ee Garaadwiilwaal falkanna waxa uu hakiyay howlihii garoonka ee markaasi socday ciidanka gaarka ee New Booliska oo goobta gaaray ayaa xiray askariga rasaasta furay sida ay warar ku sheegayaan walaalkan aadan karaama hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe to saar isla markaana riix kambalaalka casiga ku soo galaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh halkan ku soo gudbino hadii aad horey noo joogtayna dabcan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kun iyo kow jeer madaxaad noo saaran tahay fadlan like ku sii qabo muuqaalka si uu u baaho oo bulsho badan u gaadho tan iyo muuqaalka mid lamid ah intaan ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh